xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in geela iyo xoolaha noolba loo furay daaqa seeraha banka aroori oo muddooyinkii u dambeysay xidhnaa. Maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco oo maanta booqasho rasmi ah ku tagay seeraha banka aroori ayaa xadhiga ka jaray taarkii ku wareejisnaa seeraha banka aroori oo muddo dheer xidhnaa. Seerahaas oo waqti xaadirkan furitaankiisa ay baahi weyn u qabeen geela iyo waliba xoolaha ku nool duleedka magaalada Burco. Isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga gobolka Togdheer Dr. Cabdi Muuse Jaamac Hindi iyo qaar ka mid ah geeleyda xoolaha ku dhaqa duleedka magaalada Burco ayaa ka dareen celiyay furitaanka seeraha banka aroori. waxaanu halkan maamulkii gobolka oo dhan aanu u taaganahay seerihii aroori oo ah meesha wax soo saarkii xoolaha calafkoodi ku yaalo oo sanadkan aynu doonayno inay ku baxsadaan xoolaha nool ee ku nool gobolkan ayaan maanta halkan u taaganaynaa aanu furno waxaanu rajaynayaa in wax qabadka badan ee gudoomiyayaal iyo madaxda kale qarankuba inaan nala aragtaan wixii aanu qaranka u haynay ee aanu u dhowraynay inay ahayd in lagu baxsado waqtiga ay yara adag tahay geeleyda ee casriga ah ee xoolaha imka dib u dhaqatay geela iyo deegaanada ku xeeraniba waa loo furayaa waan ka mahad celinaynaa haddii aan afkii geeleyda ku hadlo waxaa la furayaa maanta oo ay bishu 3 tahay bisha February ayaa imika la furayaa oo xoolaha loo sii deynayaa marka waa ilaahay mahadii haddii aynu sida dhulkeenna aynu magaranaysaa u dhaqaalaysanno oo aynu u kala nadaamsanno. waxaan kaloo u mahad celinayaa maamulka wasaaradda xanaanada xoolaha ee ugu horeeyay wasiir Saciid Sulu Maxamed Xuseen iyo isuduwihiisu aad iyo aad u mahadsantihiin. reer gudaagana waxaan leeyahay ilaashada tacabka faraha badan ee leedin sameeyay. halkan maanta waxaan u joognaa oo xariga ka jaraynaa macasarkii weynaa ama seerihii arooriyeed annagoo ah xoolo dhaqatadii ama geeleydii gobolka Togdheer aad iyo aad waxaan ugu xamdinaqaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha isku duwaheeda maanta tacabka la gashay iyo juhdiga la galiyay faa'iidadiisii maanta waanu haynaa haddaan nahay xoolo dhaqatada ama ha noqoto anadiqda ama dad kale xoolaha gobolka maayirka degmada Burco Maxamed Muraad taliyaha ciidanka booliiska gobolka Togdheer Maxamed Faarax Nuur iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiriya Xayd ayaa tilmaamay in mashruuca seeraha banka aroori uu ahaa mashruuc baahi weyn loo qabay furitaankiisu. waa la shareysanayay markii hore oo markii la lahaa seerihii baa la sameynay oo dib baa seeraan loo xidhay waa la shareysanay 20 kiiloomitir iyo 10 dhinac in maanta loo aayay oo geeleydii ama dadkii xoololeyda ahaa reer Burco iyo reer Togdheerba halkan maanta ay isugu imanayaan oo u aayayaan oo nimcada ku taalana aan isleeyahay la marin maayo inta gudaayo biidnillah. marka waxa weeye waxaan leeyahay anu kaliya xagga nabadgelyada ka hadlaya dadka isku imanaya xoolaha imanaya waa in xil iska saaraa oo geeleyda iyo cidii meesha imanaysa nabadgelyada ay ilaaliyaan kale ciidan uu joogaa waxaan jecel lahaa inaan toddobaadkiiba soo jagareyno soo marno waxa weeyaan maanta waxaanu furaynaa u nimi halkan seeriya arooriyaad oo tadawur badan soo maray oo muddo dheer u xidhnaa maanta oo kale kow nabadgelyada inaynu ilaalino marka hore ilaalino taarka inoo xafiday cawska maanta aynu xoolaha ku soo xareynay inagu iskala ilaalino oo aynaan dhulka ballaaran ilaahay cawska dabiiciga inoogu beeray ee xukuumadduna inoo ilaalisay inaynu mataqaana ilaalino. laba in lala shaqeeyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga oo ah wasaaradda inoo xafida halkan. waxaa kaloo leeyahay halku dhigayaga maanta xukuumaddu waxa weeye waa tanoo timi waana teennii waana tuban tahay waxaa kale weeye daraadaabaa dirida engegan loo daloosho looga daba tegey ta kale waxa weeye oo xukuumadda aanu annagu isku ammaanayno nina dhuunu ku dhex joogaa nina dhaqashuu kugu dhabarjabay dhaqashadii aanu dhaqanayna haddaanu xukuumadda nahay geela iyo adhiga iyo dadkaba waa taa maanta u aayaysaan inay ilaashataan baa laydinka baahan yahay. waa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Soomaaliland deegaanka aroori ee gobolka Togdheer.